galabta waxaan ka hadlaynaa dhowr arrimood oo ku saabsan anigoo taliye hore ciidanka asluubta noqdayna baarlamaan sida ay shaqada asluubtu ay tahay iyo meeshay marayso shaqada xilkii aan ku magacawnaa oo asluubta waan ka hadlayaa niman facebookga wax soo dhigay oo qoraallo ku soo sameeyay oo ku hadlayo xilkoodii dhuminayaan ina waa ka hadlaa waxa kaloon ka hadlayaa kelmadaha beenta oo ay ku soo dareen ay qorayaan marka hore qof kasta oo Soomaali ah inuu nin kale oo Soomaali inuu tixgeliyo oo u gafin yaan ka hadli doona tan ciidanka aan ku hormaro anigu waxaan ahay taliye ciidanka asluubta baarlamaanka waa ka maqan yahay shahaadadii ma qaadan la leeyahay waa ka jawaaba baarlamaanku marka hore guddiga doorashada ima keenin aniga oo ayagu ima dhihin guddiga doorashada ee baarlamaanka 11aad ayagu ima dhihin baarlamaanan ka dhigayna kaali ayaga ima dhihin oo imaysan idman inay baarlamaan iga dhigaan baarlamaanka inaan galo ana goostay ma imaanin iyo shahaado ma qaadanin iyo kuwaas maqan xilkooday dhuminayaan marka ka jawaaba ha ogaadeen anigu qowmiyadii aan ka dhashay iyo qabiilkii aniga aan gaar ahaan ka dhashay inay baarlamaanka igu deeqeen inaan noqdo ina idmadeen haday wax iga luminayaan ayaga iga lumin kara markaan noqonay baarlamaanka aan ka qayb galayay oo aan ka mid noqonay kuma talagelin sharciguna ma banaynay inaan taliye ciidan ahaado baarlamaan xubin baarlamaan aan ahaado sharciga wadanka u degsan ma ii ogolaanay aniguna waan ogahay ummadoo dhanna way ogta taas waa midaas wuxuu rabaa inuu sii ahaado intay doorashada ka dhamaanayso taliyaashii hore ciidamada inay u sii hayaan ina farmaajo rabo farmaajo horta waa nin Soomaaliya waana nin saacadan hadda aan joogno madaxweynaha xilkaan asiga ayaa xaq u leh ama qaada ama dhiiba marka ayadoo taas la og yahay farmaajo raba xogaa waa ka qurxanayd kelmadda in loo dhigo madaxweynihi yaa raba saas inay ahaato oo intaas loo ogolaado Soomaalinimo loogu quuro kuwa hadlay haday Soomaalinimada wax ka kasaayeen waa ku fiicnaan leh taasna intaasaan dhaa waqti xaadirkan waa madaxweyne fadhiya madaxtooyada qaranka madaxweynaha loogu talagalay fadhiyo goortu ka tagi kara ama dhab u joogi karana waa isla garanaynaa marka daayad beena in korka laga saaro la yiraahdo iisi haya adinka jooga farmaajo yiri kelmad beena waay beenti amba marka isku si loo garanaynino daday raashin u tahay beent inay sheegaan aniga kuma jiri dadka beentaas ay raashinka u tahay waxaan ku hadlaayana wax xaqaan ku hadlayaan raba inaan ku hadlo waxaan ku hadlaayana wax aan been ahayn baan raba inaan ku hadlo baarlamaankaygu waa saasoo horta ima keenin guddiga doorashada baarlamaanka aniga ma keenin marka inay wax la kala haraan xoogaa way fiican tahay ayaga laftooda xilkoodii waa dhamaaday hana ogaadeen inuu xilkoodii dhamaaday iyo shaqadoodii inay dhamaatay laftooda inay tixgeliyaan waa fiicanta taasoo saasan ka dhahay waxaysan qaadan shahaadadii baarlamaanka may qaadanin oo dhaartiina mayna imaanin yaa ku jirta warka oo loo dhigaayo waxa u diiday madaxweyne farmaajo ani madaxweyne farmaajo ima diidin shahaadadiina waa qaatay laba shahaadaan waliba wataa laba shahaado yaan waliba wataa meeshii deegaan doorashadayda ahayd shahaada laga soo siiyay waa wataa tii halkan oo dawladda dhexe ay dhiibayso guddiga doorashada ay dhiibayeen ina waa wataa labadaba waa haystaa dhaarta in lagu dhaqmo aan la rabin oo la boobayana
ina aydana diyaaraan u ahay ummadaasan ka mid ahay waqtigeedan dhaarana kaliya waxa iga sii maqan haddana kaarkii la qaadanay kaarkana waa qaadan doonaa waqtigeedii iyo maalinteedana waa dhaaran doonaa shalayna nina iguma qasbin inaan baarlamaan noqdo taas meeshaan uga gudbaa waxa kale aflagaadaan u aqaanaa iyo xilkiisu ku waaya xil ninkii ii dhiibtay iga qaadi kara nin iska soo socdaba igama qaadi karo shaqada waxaan uga tagay oo ku wareejiyay taliye xigeenkii ciidanka asluubta sareeyo guuta Cabdikariin Cali Afrax meel hadduu taliyaha ka tago taliye xigeenka yaa qabanay taas baabkeedana sharciga ogol waa saas ana nin sharciga diidan ma intii dawlad la dhisay oo cid kale ay dawladdu u soo magacaabanayso isaga marka isagaan ku wareejiyay kunsiyadii kalena waa ii dhimanta laakiin waana wareejiyo isagaan ku wareejiyay warqadana waa idin soo dhigi doona Facebook tii shahaadadii saasaan ka iri waa wataa gacanteedii ku jirtaa shahaadada koonfur galbeedaan wataa tii waxaan wataa oo bangaranaysa ay dhiibayeen oo shalay lagu dhiibayay xalane ina waa wataa waa fahamtaa umaleen aydikaarna waa wataa laftiis oo koonfur galbeed ay soo siisay barlamaankana waa isugu imaanaynaa shirkana waa ka soo qayb geli doonaa adinkuna waa tagi doontaan barlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo la dhaariyayna aadan ugu farxayaa oo aan ka mid ahay kan 11aad aadan ugu farxayaa qarannimadan rabnaa dawladnimadan rabnaa dadka rabaan ka mid ahay ummadii u soo shaqaysay baan ka mid ahay dawladnimada meel dhaxba aan ka soo bilownay kuwii xornimada dhaliyay ma ahin laakiin kuwii meel dhax ka soo bilaabay oo shaqada wax ka waday aan nahay fawdadana waa na dhimaysaa oo fawdo annaga ma samaynayno sharcigana waa raacay annaga markaan leeyahay aniga waaye macna iyo inta ila midka baarlamaanka haddaan rabo inaan imaanin shirkiisa oo shuruucdiisa aanan ku dhaqmin maba soo galeen banaanka ka ahaan laha marka qof kalena aan la xagxaganin annaga iskanaga u maqan shaqadanadan ku maqannahay waana soo dhamaysanaynaa shirka baarlamaankana waa imaanayaa dhaartana waa maraynaa xilligeeda shahaadadana waa qaadanaynaa wixii baarlamaan laga rabay baanu ku dhaqmi doonaa cid kalena korka naga saarina hana xagxaganina wuxuu rabaa ciidanka asluubta iyo inuu isku haysto baarlamaanna been way ciidanka asluubta anaa ka tagay ninna igama wadin baarlamaan baan noqday baarlamaanka hal igu tiriyo ayadoo la is aflagaadaynaynin waxaana ciidanka asluubta xaq wala inuu la wareego oo ka shaqeeyo taliye xigeenka ciidanka asluubta oo waliba ay asluubtu leedahay taliye xigeenna labaad koobaad iyo labaad waa jarana anigii ugu darajo marka horeba dadka shaqada waday way aygaana shaqadahay wabillahi tawfiiq